wasiir aad baad ugu mahadsantahay inaad naga ogolaatay inaad waraysi aad nasiiso Puntland waxa ka dhacday doorasho saad ogtahay madaxweyne cusub la doortay muddo dheerna khilaaf dhuleed bay idin dhex yaalay oo dad badan ay ku dhinteen ma laga yaabaa in xiriirkiina aad wax ka bedeshaan idinkoo ka faa'iideysanaya maamulka cusub la doortay adinku waxa ku xiran tahay Puntland doorasho cusub ka dhacday maamul cusub baa yimi maamulkaas iyo siyaasadooda bay ku xiran tahay waxaan u rajeynaynaa nimankan hadda cusub ee maamulka qabsada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay u noqdaan horodayaal ama dad macnaha nabadda iyo xasiloonida deegaanka ka shaqeeya waxaan waa xuduud define garoobay 26 June 1960 xayndaabkooda iyo siyaasadda iyo istijaaha Soomaaliland wuxuu ku jaango'an yahay xuduudeeda halka wixii Soomaaliya Italiya la kala dhigi jiray iyo Soomaaliya baalki haddii qabiil noqonayo oo uu sheegayo magaciisa leeyahay isir baan qabiil ku noqonaya qabiilkiisu Kismaayo wuu degaa kilalka shanaad buu degaa iyo NFD kuwa horta ku soo xuduudda ku soo daro marka hore wasiir luqadda aad ku hadashay imaka iyo ta madaxweynaha la doortay ee cusub ee Puntland ba kama duwana hadalladii hore ee keenay inay dad badan ku dhintaan ee mas'uuliyiintiina ka horeeyay hal kale oo ka duwan oo aad idinku samayn kartaan miyaanu jirin oo nabad lagu gaari karo ana hadda ku sheegay waa sax waxaan oo qorsheysan istijaah iyo siyaasad intaba ka duwan waanu kuna shaqeynayna Somaliland waxaa jirtay muddo 26 joora soo 6 joora in international community ay isu keen dhaaftay oo cilaaqaad heshiisiin macnaha maxaa ku dhahday ay ka dhex shaqeysay Somaliland iyo Puntland intaba Somaliland macnaha qoladan Soomaaliya iyo Puntland ama Farmaajo ama Puntland tan Cabdiweli Jooge haatay way diideen Somaliland way endorse gareysay mid baan anagu aaminsan xaqiiqiyan siyaasadda Somaliland oo hadda itijaan noosh macnaha baan ku sheegayaa ama aan ku xaqiijinaya Soomaali meel kasta joogto wadada ehela wadada walaala wadada wada dhashay way qarnigan aynu joogno in khilaafaad iyo istil iyo wiilan yaro dhinta daafadu ma hayn intuba inay xasilooni iyo barwaaqo iyo nabadgeliyo iyo isdhexgal yeeshaan baa Somaliland ka go'an haddaad Somaliland tihiin iyo haddii Soomaaliya iyagu ay yihiinba labadiina dhinacba waxaad la kulantaan madax badan oo caalamka abad booqataan idinka maxaa diiday intaad isbooqataan inaad dhibta ka heshiisaan hal mar waayo 20 sano in ka badan weli may dhicin laba wasiir oo kulmay oo labada dhinac ka socda laba madaxweyne warkooda haba joogay hadii laga helayo waxaan jecelahay Puntland wadalkayga oo deegaankayga waa ummad Soomaaliyeed waa dadaanu wax weyn naga dhaxayaan dadqa noqoto haday dig noqoto annaga advocacy u noqonayna in xasiloonidaas iyo wada noolaanshahaas iyo ummaddu inaan carqalad iyo colaad la dhex dhigin ay hirgasho